على حاصل تلمان تلي تبليغ قارسين أنبياء إسكاله قال أمان تلب حذي ويان أرده أنه تبليغ بابنا ليره هذا تبليغ مركها اللب حيانه محيكو قارسين ينمتقان كتاب كعب أخرسانا يسو كسوتك بيكوليهين وهذا التبليغ دين تلاقتك دهية أنبياء دي مقع عديد ودتين مقع أنبياء إن للبحة مركه رقالة دهيد بأذنكم مريدين مقعان إذن من واتبين تلمان تانو ومدى وما أخريان دوسية قرآن ومدقان إلا يددك قرآن كالبراه والنبي أن قرآن كريم كابل سو غوري ايغو ددك قران كما بران ما اخريان تفاسيرت او انت ددك نقدان عالمين تبليغ عالمو كتاب فسريه او تفسير لوغو سocdo weliga inda saari maysid weliga ba suug intaas muhaddisiin maaha oo dadka inta ahadiista baraan tabliiq ahadiis umada baraya weliga inda saari maysid fuqaha maaha oo dadka cilmiga fiqhiga tabliiq baraya arki maysid luqawiyiin maaha oo tabliiq laga baranayo sarfiga iyo balaaqada iyo mantiqa iyo kulligood waxa ayaga ma baranba qofku umada wuxuu bari karaa wuxuu asagu barto ayaga mabda'ooda wuxuu ku dhisan yahay in la socdo oo nin walba boorsada dhabarka saarto oo la wareego oo magaalada mar la tago kuma dhisna in cilmi la barto kuma dhisna in quraan la barto kuma dhisna in fiqh la barto dadka in la barana kuma dhisna shuqulkoodba maahanba hawshooda maahanba ninkii ugu horeeyay oo tabliiq bilaabay Muhammad ibn Ilyas al-Hindi baa la yiraahdaa wadanka Hindi buu ka soo baxay habeen madow buu jiiftay oo soo kacay markaas inta ummadda iskugu yeero wuxuu yiri aniga waxa la tusiyay barnaamijka noocan inaan ku shaqeyno oo jawla sameeyno oo wareeg sameeyno oo dadka aan wareegno wareega diinta lagu gaarsi karo laga bilaabo maalinkaas socodkii bilowday ilaa hadda boorsooyinkii waa on la wataa weeyaan lama dhigin maalinkaas sidii loo bilaabay boorsooyinkii baa la wataa mabda'a tabliiq oo dhan nin qarway buu ka bilowday qarowgaas ka soo bilowday weeyaan Muhammad bin Ilyas ayuu ka soo bilowday wuu qarway qof alla qofkay soo wadaan oo ay maalinka dambe wadaana wahaabiyada ka sii qaadata waxay dhaan waxba idin barmaya ka soo tag markay dadkii ayaan ay hayaano salaada ay cabaar ku hanuuniyaan xogay qofkii oo soo roonaado jaadka iska dhaafo subax dambe soo wahaabiyo ka hor imaanaya maxay la kuwaas mabda mayal adag oo ayagu ay aaminsan yihiin xogay diin ay ku aqna dhahayaan ay qofkii u sii wadanayaan taariikhda waxa ku qoran oo kutubaha islaamka ku qoran muftigii joogay Sacuudiga ee la yiraahdo Ibn Bas oo dhintay hadda muftigii Sacuudiga waxa la weydiiyay tabliiq ka waran baa la yiri tabliiq maxaan ku sameeynaa baa la yiri sideen yalna tabliiqa Ibn Bas oo bal nooga sheekay markaas wuxuu yiri tabliiqa baarid baan ku sameynayo waxaanu ogaanay in uu kamid yahay jamaacada noo shaqeynaysa inuu yahay baan ogaanay buu yiri yana la ka taaban anaga noo shaqeynaya tabliiq waabiyadu waa og yihiin tabliiqa inuu ayaga u shaqeeyo ilaa yawmina hada kulamada ay qabanayaan bidcadu ama London ha ku qabteen ama meel kale ha ku qabteen tabliiqa kuwa ugu sarsareeya waa laga marti qaadaa islaaxa waa laga marti qaadaa wahaabiyada waa laga marti qaadaa magacayna idin sheega waxba uga ma baahni laakiin waxaad ogtihiin isku hal meel bay mu'tamaraadka ku qabtaan kulli ujeedooyinkooda oo dhan waa dad isku hal dallad ah oo annaga magacyada noo kala bedelanaya oo qola la bixin islaax qola la bixin tabliiq qola salaful jadiid la bixin qola la bixin i'tisaam kuwii hadda macnaha maalmaha hadlayay kulligood waxaan ognahay halka meel ay ka soo wada qalin daarteen meesha ay ka yimideen meesha laga waraabiyo meesha ay mabaadi'dooda ku salaysan tahay kulli wayda naqaan marka isku gambamayne tabliiqo meelaha ka qaraabta dadka cilmiga baranaya oo sunniga ah dhexdooda ha soo gelina ilaa adinku waa leedii yaqaan wixiina dhan ru'yay ku dhisan tahay qarowbay ku dhisan tahay maaha diin maaha dars maaha quraan barid hooyada waayeelka meesha ku dhacday waa loo imaanaya wiilka ay dhashay waxa la oranayaa inaad baxdo oo dhowr maalin tabliiq u baxdo ayaa ka ajir badan hooyada oo meesha tal inaad la joogto waxa kaaga ajir badan inaad tabliiq raacdo waa la wadayaa weeyaan muadinka masjidka jooga waa laga wadayaa mudarriska kitaabka akhrinaya oo dadka diinta baraya 24 saac inta loo yimaado ba waxa la oranayaa sheekhu khuruuj fi sabiila man raaci karta khuruuj fi sabiila ma bayaqaaniinba maxaa yeelay khuruuj fi sabiila waxa la yiraahdaa
qof walba oo wadada ilaahay ku socda oo khayrka u socda macallimka quraanka dhiga wa al-khuruuj fi sabiilillah sheekha dadka diinta baraya al-khuruuj fi sabiilillah qofka jihaadka gaalada xarbiyiinta la dagaalamaya al-khuruuj fi sabiilillah maba yaqaanin tabliiqu khuruuj fi sabiilillah maba yaqaaninba adigoo ku socda khayrkii bay ka wadayaan waxay u maleeyaan khayrka adigu aad wado inuusan khayr ahayn laakiin midka ayagu wadaani inuu khayr yahay marka yaa leedinku khaldin tabliiqu mabda saxan maaha islaaxu mabda saxan maaha i'tisaamku mabda saxan maahan salafiyadu mabda saxan maaha wahaabiyadu mabda saxan maaha khawaarijta oo dhan kulligood waa bidcooyinkii raadadkoodii bay u wada laabanayaan khawaarijta ahaa laakiin halka mabda ama wadada saxda ah iyo caqiidada rasmiga ah oo diinta noogu cadi waa dariiqa saxda ah oo noo qoran oo la yiraahdo ahlu sunnati wal jamaa kaas baan ilaahay weydiisanaynaa inaan rabbi loo tagno qiyaamada oo meel kale ilaahay nooga leexinin weeyaa meel walba adduunka aan joogno ilaahay nama bedelo dariiqa saxda ilaahay nagama bedelo weeyaan annagoo wada saxan heli karna oo kitaabkeena gacanta ku haysana nin habeen madow qarway yaa leedinku khaldin waa waxaan meel haysanin weeyaan maalinba meel baa loo ordayaa maalinba meel subaxba meel oon baa loo socdaa weeyaan annagu waxaasoo dhan kuma jirno hal meel oon baan taagannahay ilaa aan ka dhimanana taas baa ilaahay weydiisanayna subxaana wa tacaala waa waddadii aan iyadu firqo ahayn oo maalinba aan koox cusub ahayn ee diinta islaamka ku sugneed iyo kitaabaha qoran oo islaamka ku soco jiray oo nabi moxamed gelaysay calayhi salaatu wasalaam waa dariiqa ahlu sunnati waljamaaca ahlu sunna waljamaaca markaad maqasho ujeeddadu ma ahan qof siyaasad ku jira ama mabaadi gooniya ka shaqaynaya laga hadlin maayo shabaab ba haddii rabaan waxay odhanayaan annagaaba ahlu sunna ah tabliiqu waxay odhanayaan annaga ahlu sunna ah laakiin intaasoo dhan ahlu sunna way iska beriyaasha caqiidada islaamku way iska beriyaasha kitaabkan aan akrinayno waa caqiidadii ahlu sunna caqiidadii tabliiqa ma aha tii khawaarijta ma aha tii muctasilada ma aha tii jahmiyada ma aha tii mujassimada ma aha tii shiicada ma aha tii akhwaan muslimiinka ma aha tii yahuudda ma aha waa tii sunnada nabi moxamed ku socota weeyaan calayhi salaatu wasalaam waa sunnadii rasuulka waa sunnadii asxaabta waa dariiqii mujtahidiinta waa dariiqii salafu saalixa caqiidada lagu sheegayo oo lagu odhanayo ahlu sunna waa dariiqaa saxdaa weeyaan oo kutubta ku qoran baa looga jeedaa inta kaleetana ahlul ahwaa walbidac baa la yidhaahdaa